bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal kusoo dhawaada warka dalwanaag TV qodobadaad ku daawan doontaan warkeena habeenna waxaa ka mid ah dagaal khasaare geystay oo ka dhacay gobolka Galgaduud iyo khasaare kala duwan oo laga soo tibinaya halkaasi maamulka Soomaaliland oo jawaab kulul hawada u mariyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble madaxweyne Farmaajo oo kulan la qaatay dhigiisa dalka Uganda Yoweri Museveni iyo arrimo dhowr ah ka wada hadleen oo ku saabsan khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ka dhaxeeya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo kulan la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Qatar iyo arrimo dhowr ah ka wada hadleen labadaasi mas'uul qodobadaas iyo qodobadii kale ee ugu soo korro intaan barnaamij wareedkeena ku guda jirno ayaad maqli doontaa saaxiibayaal haddii ay tahay markii kugu horeysay waxaan kaa codsanaynaa channelkeena inaad subscribe saarto like gareyso share gareyso si ay u gaaraan asxaabtaada macluumaadka halkan idinkugu soo gudbin aad baad u mahadsantihiin dagaal u dhaxeeyay laba maleeshiya beeleed ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Shilan markaa ku yaala waqooyiga gobolka Galgaduud waxaana ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac labada maleeshiya beeleed dagaalkooda ayaa waxa uu salka ku hayaa dagaalo iyo dilalooyin qabiil oo markaa deegaanadaasi horey uga dhacay waxaana dagaalka maanta ku geeriyooday laba ruux halka tiro intaa ka badan ay ku dhaawacmeen dadka deegaanka Shilan oo hoostaga degmada Balanbale ayaa waxa ay ku waramayaan in dagaalka inta badan xoogiisa uu joogsaday hayeeshee mararka qaar la maqlayo rasaas goosgoos ay u adeegsanayaan labadii dhinac ee halkaasi ku dagaalantay sidoo kale waxa ay sheegeen inay dareemayaan cabsi ku aadan in dagaalka uu saameeyo deegaano kale ee ka tirsan gobolka Galgaduud halkaasi oo horey uga dhacay dagaalo xoogan oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh dagaalka labada maleeshiya beeleed ee maanta ku dhexmaray deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa ku soo aadaya xilli deegaano ka mid ah gobolkaasi ay ka taagan tahay xiisada u dhaxaysa maamulka Galmudug iyo kuwa ahlu sunna wal jamaaca oo maalmihii la soo dhaafay deegaanadaasi Galmudug isku farasaaraya isla markaana dagaalo xoogan ay ku dhexmarayeen markana maamulka Soomaaliland ayaa jawaab kulul hawada u mariyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa ka jawaabtay hadalkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ee ahaa in Soomaaliland ay si qasab ah lagu soo masaafuriyay degmada Laascaanood dad Soomaaliyeed falkaasi oo ku tilmaamay mid aad looga xumaado qoraalka oo ku qornaa luqadda Ingiriiska oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa waxa lagu sheegay in Soomaaliland ay ku qasban tahay inay bixiso jawaab cadeyn ah oo aan waxba ka jirin hadalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu doortay inuu gudbiyo warar aan sal iyo raad toona lahayn qadiyadda Soomaaliland iyo go'aamada lagama maarmaanka ah ee masaafurinta shakhsiyaad la soo xulay oo sharci darro u deganaa degmada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ee Soomaaliland ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Soomaaliland sidoo kale waxaa qoraalka lagu sheegay in Soomaaliland 30 sano ee la soo dhaafay ee martigelisay qaxooti ka yimiday wadamada dariska ah si waafaqsan waajibaadka bani'aadanimo ee Soomaaliland ee ku xusan xeerka caalamiga ah oo la xiriira shuruucda gudaha iyo sidoo kale xeerarka muwaadinimada waxaa muhiim ah in la xoojiyo in go'aanka musaafurinta tiro shakhsiyaad ah oo laga soo xulay dhulka Soomaaliland waxaana dhiirigeliyay arrimaha khuseeya amniga oo ay ku jiraan codsi ka yimiday bulshada deegaanka iyo sidoo kale maamulka degmada Laascaanood warbixinada iyo sidoo kale la tashiga sirdoonka waxa ay tilmaan cad ka bixisay in shakhsiyaadkaasi ay ammaanka dadka deegaanka ay ku ridayaan halis sidaas darteedna Soomaaliland waxa ay ku khasban tahay inay tallaabo qaado laakiin hab bay ku dhaqaaqday si buuxda iyadoo u ixtiraamaysa xuquuqda aadanaha ayaa sidoo kale lagu sheegay qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa waxa kale oo ay sheegtay inay xiriir dhow iyo iskaashiyo ay la leedahay dhammaan dariskeeda oo ay ka mid yihiin arrimaha socdaalka iyo xakameynta xuduudaha oo ay ku fuliso dhammaan u hoggaansanaanta habboon ee sharciga caalamiga Muqdisho waxay awoodi weyday inay ilaaliso muwaadiniinteeda oo ay abuurto degenaansho siyaasadeed inkastoo ay jirto lacago xad dhaaf ah iyo gargaar caalami ah oo la siiyo si loo horumariyo awoodahaas waxaana tallaabadaasi oo dhan
ay u qaadaysaa in ay beesha caalamka uga jeediso ciladaheeda ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Somaliland. guud ahaan saaxiibayaal barnaamij wareedkeen aad ka daawanayseen dal wanaag TV waa inaga intaan barnaamijka milacayna ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. waxaa inaga xasuusinaa haddii ay tahay markii ugu horeysay channelka inaad soo booqato inaad subscribe noo saarto, like gareyso, siina share gareyso asxaabtaada si ay u gaaraan macluumaadka halkan idinku soo gudbino.